horta adduunyadu ma ahan qaale dadaa aaminsan hadiyada lacag in lagu soo rido laakiin waxay aniga hadiyadii igu yaab badneed oo aad aan uga helay waxay ahayd nin odaya waxaan u sameeyey baafin caruur raadinayay caruurtii helay ma shaqeeyo wax ma haysto waan aaba qalbi fiican hadiyadu wuxuu igu soo riday warqad igu soo dhex qoray ajir dad aan dadkooda u baafiyey helay aan ugu soo noqon jiro oo dad ii sheegaan hebel maasha allah qaraabaan nahay qofku raadinaya wuu helay igu soo laabana jiraan Soomaali qaar jiraan marka ayaga ku dhowdo waxaa soo gala in markay familka heleen la yiraahdo waran Abdiciisa fiidoodu ma naqin hadaan salmay horta dadka ugu badan ee ragga ah oo la raadinayo oo caruurtoodii amba xaasaskoodii raadinayaan waxay u badan yihiin kilinka shanaad ay u badan yihiin hablaha ugu badan marka la yiraahdo ayagana caruurta raadinayo caruurta ka tagan waqooyiga u badan yihiin ugu daraatan kala yaab waxa waaye afraad waxa soo galay qodbisarada inta gabar la nikaaxsaday muddadii hore bersanaadkii caruur ay dhashay la maqan ee la yiraahdo kadibna cunugii lagu calaataa la leeyahay aadan ilaa wallahi wacal ma ahan aabiis wasan nikaaxsanay laakiin cid lama ogeyn oo aan helay ma cadna ma xisabnaa qodbisarada waa shayga ugu xun ee saameynta ku yeelatay caruurta maanta gabdhaha iyo wiilasha aaba la'aanta sheeganaya dadal jirkooda quudsanayaan si loo dhibaateeyo loo garaacay nolosha ay soo mareen markaas oo kaleete waa ooynay waa ilma bagay adigoo ooyay oo xanuunkii iyo wixii tiiraanyadii ka dhargay oo qalbiga adkaaday halkaan imaanay ani waxa igu xanuun badneyd jijo oo ayadoo aabii hooyo leh gabar qurux badan dhowr jeer loo furo wacel baa tahay caruurteeda dugsiga looga soo aaflagaadinay loo caynay meel walba laga faquuqay marka baafinta u sameeyay hooyadeed la helay gabar eedadeed ay lumisay ayadoo yar oo 30 sano kadib ka waran hooyadeed heshay aabaheed heshay magaci uusan ahayn gabar iyo hooyadeed ayaa jiray daris ahaa gabadha hooyadeed ay ka adeegataa mana taqaan qudaariga gadataa subax walba ay u tagtaa ayada korsata aabaheed uu dhintay gabadhii markii baafintaan u sameeyay hooyadeed waaba islaanta qudaarta ay ka iibsata waayo ilaa magaca saxan oo hooyadeed looma sheegin social media ani dhaqaale uma soo gelin sharaf iyo magac uma soo gelin ee waxa u soo galay inaan ka macaasho dunia aakhiro waad uga faa'iideyso dadka tawfiiqaysa Abdiciisa aad baan kuugu mahad celinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh soo dhawaada daawadayaal meel kasta aad joogtaanba waa Amira Share fadlan haddaad page-ka ku cusub tahay soo follow garee haddaad YouTube-ka ku cusub tahayna subscribe soo saar waxaa maanta nala jooga qof qaaliya idinka hor dhici maayo waa kuma qofka qaaliga ah waa dhawahay ma sha Allah waxaan ku faraxsanahay inaan kulankan quruxda badan ee martiqaadka naga aqbasho waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga Abdiciisa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kulli warbaahinta badan bad ku soo jirtay aad iyo aad anigu waxaan ahay dadka kugu xiran xagga Facebook ma sha Allah marka waxaan rabaa inaad iga faallooto Abdiciisa bal halkan warbaahinta ka soo gashay adigu soo koobay wallahi warbaahinta waxaan ku soo biiray berigii oo wadankan aysan ka jirin dowlad saas oo badan magaaladan ay kala xirnaa gudoomiye kooxeedyadan soo bilaabay waxaa tiimkii warbaahinta idaacadaha ka soo galay waxaa aad loogu xasuustaa oo muddo aad u badan aan ka soo shaqeeyay radio Banaadir 2003 4 5 6 ilaa 17 sano aan ka shaqeynayay markii dambana waxaan u soo wareegay qaybtan telefishinada u soo wareegay waxaan ka shaqeeyay telefishinka Somali Cable oo muddo sanadaha aan la joogay oo aan xiriir kala duwan ka soo qabtay shaqooyin kala duwan ka soo qabtay markii dambana aniga hadda si gooni u shaqeeyo saxaafadda ku jira laakiin social media ayaan leeyahay media company intaas ku soo jira media oo la leeyahay oo gaarka loo leeyahay ka soo shaqeynay goobo badan baad ka soo shaqeysay oo kala duwan hadday tahay telefishino arrimo bulsho kale idaacado website-yo wax badan baad soo qabatay jaraa'idyo ma xasuusataa taariikhdii kuugu badnayd ama kuugu saameynta lahayd intaad ku jirtay warbaahinta ee aad
xoog u shaqaystaado waqtigaas kugu activity badnaa ama halkaas ka shaqeynaysid wallahi muddadii shaqada ugu badan aan qabanayay laba qayb ay ahayd waxaa jirta xilli aan ka shaqeynayay idaacadda banaadir waxaan xasuustaa in magaalada ay kala xirantay oo qaybtii innaga aan ku shaqeynayna oo radio banaadir ay nimanka wadaadada la wareegeen shaqaalihii uu yaraaday aniga iyo dad kooban ismaaciil tifow xasan laki faadimo deeqo tiim adi aan badnayn aan kusoo harnay shaqada in la qaybsaday gaartay waxaa suuragal ahayd inaan subaxii newska akhriyo duhurka akhriyo habeenkiina aan akhriyo barnaamijyadan aniga aan qayb ka qaato warkii aan wax ka soo saaro saaxiibadayna maalin kale saas ay sameeyaan oo maanta oo dhan la shaqeynayo meel la aada ma lahan cabsi way jirtaa dhankii dowladda mar haddaa xagga jirto ayaga kamid tahay nimanka aan la joogno wadaadadana haddii ay wejigeeda aada u fahmi waayaan basaasaa tahay dhinac walba cabsiyaa ka jirtay waa kasoo gudubnay marxaladii ugu adkeyd aan ku shaqeeyay taasay ahayd riskiyo badan hanjabaado badan dhibaatooyin badan oo xilliga saxaafadda la kulmaya jiro laakiin waxay ku xiran tahay qaab shaqeedkaaga laakiin markasta waxaan ku dadaali jiray laba shay aniga inaan xadgudbin news ahaan waxaan hubin inaan sheegin labadaas aad ugu dadaali jiray tan kale ma samayn jirin boonboonin mana ahayn qof aragtidii social mediaha iyo banaanka fadhi gudarada laga arko hadda media waa aragtay qofba qofku taageeraa amba in adeerkiisa ha noqdo amba siyaasad ahaan aragtaha ku noqdo qofku taageeraa amba qabiilkiisa ha noqdo aniga taariikhda social mediaha amba mediaha taageeradeyda shakhsiyadeed waa jiraan dad taageersanahay laakiin weligii ma muujin waayo waxaa ogaay inay saaran tahay waajibtaas ka weyn oo ah mid saxaafadeed waa ka taxadiri jiray waayo waxaa ugu beerneed cabsida ah ilaali yaan la ogaanin yacni gudahaaga yaan la ogaanin waayo markaan maanta aniga aan laba qofood oo siyaasiya qof la safto ee aan social media ka taageero biri haddii qofkii kale qalad oo galo news aan ka sameeyo adiga maxaa leedahay ninkan qofkan waa la dagaalsan yahay waxaa uu sheegaya dhabeen waa xataa hadday run tahay marka waa ka foojignaan jiray mana fiicna in la sameeyo okay cabdicasiis oo maandaabaad muqdisho inaad ku dhalatay inaad kusoo barbaartay inaad aday sheegi doona maandaabaad inta badan soo joogtiin cabsiyo badan iyo magaranaysaa riskiyo badan ay ka dhaceen adiga ma jirtaa xaalad kugu gadaansanayd oo macnaha cabsiyad oo marka soo wajahday marar badan markaa magaalada ku shaqeynayso magaalada qof news ka shaqeynaya waa taqaanaa warka aad sheegayso qolana way ku faraxsan tahay qolana way dhibsanaysaa weliba news siyaasadan ka shaqey jira aniga waa lagu hanjabaa waa lagu laaluushaa waa lagu waabinaa waa lagu cabsiinaa waa lagu cagajuglaynaa waxaan xasuustaa hadda ka hor anoo ka shaqeynaya idaacadda banaadir waxaan ugala yeeray warshada caanaha madaxweyne sheekh shariif xilligaas wuxuu ahay guddoomiyihii midowga maxaakiimta waan tagnay markaan tagnay anagoo tiim aan tagnay news aan ka sameeyey qaabkii newska aan u sameeyey dadaan jeclaysanin subaxi waa lay wacay waxaa laygu yiri newska aan sameyday midowga maxaakiimta aan ka sameyday waxaa aada uga carooday isbahaysiga la dagaalanka argagixisada xubno ka tirsan waa weyn muhiim ah arrinta saameyn badan iguma yeelan galabkii maamulka waxaa amar lagu siiyey inaan aado dayniile shir jira aad u qabanaya maxamed khayre meesha markaan tegay baa dareema tensionka maxamed khayre staafkiisii dhalinyarada la shaqeynaysa waa la wada careysan yahay marka saxafiyiinta la socda waxay leeyihin haddaa baxdo dadaa lagu daba dhigaa waa lagu dilaa markaas shirka jira intuu socdana waa cabsanaaye marka dambe was celin waay maxamed khayre u sheegay waxaana aniga wariye ahay warkaas saasaan u deeyey staafkaaga iyo dadka tiimku ah inay handadaan ma ahan wuu qoslay nin oday oo khiyaar u ahaa wuxuu yiri cid korabto ma lahan cabsida iska dhaaf waxaana aada u baqanaa mana baqan jirin marka hore tegi jirnay gaari ugu soo diray ilaa waxaa lay keenay jidka warshadaha halkaas marka la keenay kadib aan taxi ka soo raacay marka cabsiyo badanaa iska jiraan marka saxaafadii ku dhex jirto wallahi dee saxaafadu weliba way sii kala xag jiraan saxaafadda muqdisho marka kusoo dhex jirto waa fair risk aad bay cabsi badan tahay cabdicasiis weli ma ku fikirtay inaad noqoto siyaasi maadaamada warbaahinta waxaa jira wariyaal badan oo warbaahinta kasoo shaqeeya aakhirka siyaasi isu bedela adigu ma ku fikirtay inaad siyaasi noqoto wallahi waxaa jirta mar laysoo bandhigay inaan wasiir ka noqdo galmudug oo qaab beel ahaan laygu sheegay oo
dhaqankayga iyo qaar ka mid dadka siyaasadda noogu jira ay dhaheen xilkaas kula jeclaanay matal صح waa diiday sababtoo ah markaasna diyaar u ahayn siyaasadda inaan galo marxaladda siyaasadda maanta ay ku shaqaysan waan la socday waa iska diiday arrimo badan daraaddood aan u diiday cabdicaiso ma jirta maadaamad warbaahinta kasoo shaqaysay in badan iminkana aad warbaahinta ka madax banaan tahay caqabad kaa keentay warbaahinta oo adigu maadaama institution tahay oo aad keligaa institution dhan haysato branchiyadaada iyo ma garanaysa waxaagoo dhan lala socdo ma jirta caqabad aad uga soo baxday warbaahintii oo ku kaliftay institutionka inaad samaystaan saxafiyiinta oo haysataa caqabadan waan uga faa'iideynaa horta rag badan oo hadda waxaa arkaya facebook kusoo qoray intaan kadib media gaar loo leeyahay kama shaqayn karno pagekaasaan leeyahay waxaa leeyahay soo hoobta saxafiyin waaweyn ku jiraan oo ila yaabaya markaas saxaafadda aniga aan ka baxayay oo shaqada telefishinka aan joojinaya mediaha soomaalida ee maanta jiro iyo social mediaha aan leenahay waxba isma dhaamaan waxaana la aamin ogyahay social media sababtan kuu sheegaa aniga markaan page leeyahay oo aan saxafi shaqadiisa yaqaano sharafkayga aan ilaashanaa newskana sida saxda aan u daynaa laakiin telefishinka ninka iskale waa siyaasi waa danley waa business news television lagu kalsoonaan karo oo soomaali ah maanta waa yaryahay waayo warka $300 laga rabaa news lacag lagu soo qaatay saa u samaynaysa waa taqaanaa gabay camal u samaynee amaan ah reer xamarka waxay dhahaan amaan isoo dub canjal amaana camal u samaynee xaqiiqda ma sheegi kartid waa laaluushan tahay haddii qofka xadgudbay iyo haddii lagu xadgudbay ma ka hadli kartid wadankan waxaa ka jira shirkado waaweyn haddii qalad sameeyaan iyo hadday sameeyaan waa la amaana waxaa jira shakhsiyad waaweyn la sharfo waa la amaana ninka telefishinka bidaacadda iska dadka qabiilka ehelka ah wax lagama sheegi karo marka intii aad noqon lahayd qof lagu shaqaysto sharafkiisa karaamadiisa dadnimadiisa lagana macaasho mushaarka la siiyo saxafiyiintana aad ay u bahdelan tahay waxaa fiican qofku inuu ilaahay aamino gooni u shaqaysto tusaale aniga xarumaha aan ka shaqayn jiray oo maanta aan ka shaqayn jiray youtube-kooda iyo keyga maanta keygaa subscribe badan keygaa daawasho badan dhaqaalaha dilada keygaa dhaqaalo badan muxuu ku gaaray anaa ilaashaday laakiin kaas ninka iska leh isagaa siyaasadiisa iska leh wariyaasha iyo tafatirka loo sameynaya ma ilaalin karaanoo ninkaa dan uu leeyahay inta uu soo leeyahay hebel mataqaanaa maya ujeed badanaan ka leenahay ama mashruuc hebel uu siiyey waxaas geli marka social mediaha marka horeba telefishinadan soomaalida ah international ma ahayn marka wariyaha caanka ah beejkiisa iyo telefishinka beejkiisa waxba isma dhaamaan weliba waxaa xogtiisa lagu kalsoonaan karaa wariyaha gaarka ah xogtiisa sida maanta ma jirto waa aragteen maanta adiga goorma kugu dumaysa idaacadda artisata dhegeysato wallahi muddo dheer gurigaaga markaa joogto telefishin daawataa oo news ah mayma daawa haddii u baa telefishinka waxaad facebookisa daawataa ama telefishinka jecesha youtube-kiisa tegeysaa ama facebookiisa marka facebookeena iyo youtube-keena kuwii la challenge garaynaya weliba ka saameyn badannahay waxaan la hadlaya amba aan ka hadlaya waa wariyaha xirfadlaha ah aan ka hadlaya ma ka hadlaya kuwa idaacadaas ka dhex fadhiya wax loo qoro cabdicaiso waa mahadsan tahay maadaamaad maanta institutionkii aad adigu kasoo makaranaysa ee kasoo baxday warbaahintii aad institution aad u madax banaantahay aad haysato bal qaabkaad u aasaastay iyo go-aan adeyg adigoo dhalinyarada uga faa'iideynaya aniga maalinta shaqada telefishinka ka tagayay anuu mushaar fiican qaadanayo caqabado badan ay jireen ma rabin aan ka hadlo ani meel haddaan ka shaqeeyo oo mar aan soo maro meeshaas dadka kala shaqeeyan waa ehelkayga waa saaxiibaday cisho meel aan naqanay laakiin waxaa amar lagu siiyey inaan social media joojiyo inaan facebook joojiyo inaan youtube joojiyo inaan telefishinka oo keliya aan ku wakaado waxyaabihii aan ku dhahay ninka maamul fiican jira laakiin waxyaabihii aan ku dhahay ninka milkiilaha waxaa kamid ah waxaan ku iri aniga markii aan 8 saac shaqeeyo kadib haddaan suuqa xamarooni qara ku iibiyo xitaa maxaa igaga baahan tahay iyo maya intaa ka shaqeynaysaa tusaale hinaasana wuu jiray waxaa la dhibsaday in mararka qaar warbixinada gaarka aniga aan u leeyahay humanitarialka ah ay ka saameyn iyo daawasho bataan kuwa telefishinka ka baxaya programmada aan qaban jiray ayaa loo daawo jiray ilaa marka dambe telefishinka amba xarumaha aan ka shaqeynayay aan go-aansaday inaan joojiyo meedii companiga aan samaystay wallahi dhaqaale kama fiirin ee waxaan ka fiiriyey inaan dadka caawiyo ana waxaan sidaa meesha aan ka liibaan hal meel waayo mar walba niyadeyda kusoo dhacdaa shaqada telefishinka marka ka tagayay
ramadaan ayadoo soo dhow yahay ay ahayd kadib ramadaan kadib aan ka tegay ramadaankaas waxaan sameeyey lacag $50,000 ku dhow aruuriyey lacagta aan aruuriyey dhalinyarada caawinaysay la shaqaynaysay waxay dhowr jeer iisoo jeediyeen in lacagtaas 50,000 20,000 oo kamid aan qaadan karo qaar waxayna 10,000 aan qaadan kartaa waxaan u sheegay telefishinkaas dhaafayo sababtoo ah lacag kugu filmaysatid adaa aruuriye ujuuraa kulada culimaa diin waa weydiiyey waxay boqolkiiba inta leedahay waxaan isku yiri abdicaiis lacagtan aan ururisay hooyo Yurub joogto oo baraf ku shaqaysay aaba Afrika joogo nin odaya oo train Mareykan ku wado dad dhiidkood waaye inta percentage boqolkiiba 20 agoonsaleed ama boqolkiiba 10 inta 10kaas haddaan leedahay xitaa inta sadaqaysaleed waa inta adiga ku darsaleed lacagtu waa bixiyey agoon dhar lagu gaday iyo dad masaakiin la afurnay aan kala qaybinay ramadaanka markuu dhamaaday waa meesha aan ka liibaanay telefishinka aan iska dhaafay social media heega bishaas waxaan ka sameeyay $200 qof xaruur leh guri degan waalid leh oo $200 lacag helay ee shaqadan ka tagay waa dareemi kartaa ilaahay wuxuu ugu og yahay bishaas lacagta kirada ah lacag aan ii taalay oo ii hartay aan ku bixiyay nolosheedu way kaafi weyday meelo kale waxay ka soo galgaleen 2 bil kadib 3 jibaar lacagta aan ka qaadanay telefishinka aan sameynayay anoo telefishinka iska dhaafay social media aan ka sameynayay anoo qof aynin qof dhibaataynin dadkuna ay duceynayaan barnaamijkii intaan kadib dala bilaabay oo ii sii qarxay dadkana waa caawiyay marka waxaan ku fikiray barnaamijyada dhanba inaan ka dhigo kuwa qalbiga bini'aadamka caawin karo barnaamij aan wax laga faa'iideyn janalkayga ma ka baxo waxaa ka baxay dhibanaha qarsoon oo aragtay in qof qaliin lagu sameeyay amba lagu caawiyay amba guri loogu dhisay amba dhaqaale loogu aruuriyay waxaa ka baxo xasaabaha toosan oo gabdho inta xitaa uur loo yeelay wacal ah lagu inkiray tala aan siinay markii arinta family ay galeen ninkii garti aan galnay oo la ogolaado qaarkood Mareykanka ay joogaan oo muuqaaladooda maanta caruur dhan qaarkood aan lagu sameeyay iyo gabdho kale isdil rabay oo aan tala siinay kuwa nolosha dhan iska dhaafay oo aan fursad siinay barnaamijka xasaabaha toosan muddo dhex u gaab la ka soo celinay waxaa jira barnaamijka Elintir oo aad taqaan oo barnaamij caan oo famous ah waxaa jira barnaamijka bandhiga baraha bulshada oo aan kaga hadlan dhacdooyinka ugu waaweyn baraha bulshada waxaa jira barnaamijka ducada qalbiga oo qofka asiga ogeyn lacag looga farxiyo qofkii ogeyn oo kaafinay ku shilin amba 2,000 amba 5,000 aan waxaan siinaa lacag $1,000 gaaris 500 gaaris si qofkii uu qalbi ahaan uu fiicnaado barnaamijyadaas oo dhan waxaan ugu talagalnay inay noqdaan side wax fiican laga faa'iiday hal barnaamij jira oo real show waxaan kusoo qaataa iska baashaal challenge mana badnaba inta kale ee janalkayga ka baxayso waa barnaamijyo aan isleeyahay waxa u hibaysay shacabka Soomaaliyeed tirahaan iyo guud ahaan marka isku geyso imse barnaamij baa ka baxa YouTube-kaaga iyo page-kaaga wallahi ilaa 7 barnaamij ka baxday 7 barnaamij waxay ka hadlayaan bini'aadamka hal barnaamij oo iska baashaal mooyee inta kale dadkan garab ku siinaa Abdicaiis barnaamijka Elintir barnaamijka ugu saameynta badan barnaamijyada samayso barnaamijka waa barnaamij marna farxad leh marna murugo leh marna ma garaysa qof kastoo qalbi leh oo bini'aadan always sad markasta murugo leh ha marka Abdicaiis barnaamijka Elintir markaad sameynaysay kulli sabab ka lifta bas sababtii ku kaliftay inaad barnaamijka samayso iyo cidii kugu dhiirigelisay horta barnaamijka Elintir magacaas ana bixiyay laakiin barnaamijku waa baafin social media magac la bixinayo magac unique oo yar ah loo baahan yahay waxaan ka fikiray marka positive ka inaan qaato ilin oo qofkii ilmeynaya ah iyo markuu farxo laga tirahay waa isku darnay waxaan ka dhignay Elintir magac yar oo unique waxa mahadsan Ilaahay inuu aadiyay kadibna wuu noo gadmay Elintir ujeedka aan u sameeyay waxay ahayd waxaan arkay baahida jirto sabab kale oo jira laakiin baahida jirtaan arkay gabaraan ka duubay muuqaal baafina gabadhi markaa muuqaalkeeda deeyay oo dadkeeda ay heshay magaaladu dhan ay soo wacday aabba iga maqan wacala taalay dhaha gabdho badan dhibaataysan wiilal oonay guur beelay wixii markaan arkay waxaan go'aansaday barnaamijka markaas Elintir lama dhayn inaan barnaamijka Elintir u bixiyo aan wado waxyaabaha kale ku sheegay waxa kamid ah wiilan saaxiibanahay gabar ka luntay gabar askari la ka luntay xaaskiisii oo gabadh dhashay oo dhalaysay isbitaalka markii la geeyay inta dhakhtar ku jirtay gabadh dhuntay naxdin gabadhi waxay taalaa isbitaal inantiisina waa luntay gabadhi raadina marka
واتقانا ميكروفون وحال رادنا هبل هبل هبينكو دان رادنين isaga marwuu ooya marwuu cadaada marwuu cala gabadhii waxaan raadinaynay 3 days idaacadan taga waxa ogaaday xanuunka uu leeyahay markuu qofka maqay baahida jirto kadib dadkii u baahan iyo xanuunada jiro iyo qalbiyada Soomaaliyeed iyo Soomaalida kale irdhood waxay u baahan tahay waxaan go'aansaday inaan sameeyo geedkii baadida baadiyaha markii la joogo wuxuu dhigi jiray waxaa jira geed baadida lagu xiro geedkaas wixii dhumayn waa la keenaa qof wax ka maqayn way yimaadaan marka Facebook page-kayga geedka baadida oo hadda baadidan ku xirnaa Cabdayso barnaamijka Ilintir dad badan ayaa dareenaan markay socon waayaan oo intii ilmada qarsan waayaan waayo qofku qalbigu kooya gudaha ilmaduna waxay ka timaadaa qalbiga sax waa maadaama mar kasta oo qof ku yimaado ay dhibaatadii ka soo culus tahay oo qofkii markuu dhibaatadiisa ka sheekaynayo uu ooyo qof kastoo bilaadan iyo caloolahaan iyo urhaan baa wadan qanaya sax waa bal ma jirtaa in kastoo aan soo kala qalbi adag bad ka qaadan ma jirtaa inay qof kasta saameeyo ma ooyda soo daawilay ma jirtaa macnaha qofkii markaad waraysato aad waraysigii ka qaado barnaamijka gudaha wado inaad barnaamijka hakiso iyo barnaamijka sii wado iyo magaranaysaa qofkii dhibaatadii jiray intaad la dareento alla xanuunsato balse qofkii baa kuugu saameyn badnaa barnaamijyada diyaarisay ee kugu xanuunka badan horta Soomaalidu waxay arkaan muuqaalka kaliya qofka maba ooyaba markuu halkan yimaado laakiin koow markaan sheekaysanayno oo kaamirada aysan jirin oo labadeena aan nahay waa baroor bagnay waa soo ooynay sabab qofka inta ku yimaado oo kula fadhiisto oo wuxuu ku sheegaa xanuunadiisa waxyaabo aan social media laga sheegi karin oo qarinayo xitaa uu ku sheegaa dadaan jirkooda ku tusinayaan si loo dhibaateeyo loo garaacay nolosha ay soo mareen markaasoo kaleete waa ooynay waa ilma bagay adigoo ooyay oo xanuunka iyo wixii tiiraanyadii ka dhargay oo qalbiga adkaaday halkaan imaanay qofka ha ooyay laakiin adiga dhibkii aan waa ogahay dhibka marka waxaan ku qasbanahay inaan aniga ooyo maahane inaan dhibkii idin dareensiiyo idinkane waa taas aniga waxaa igu xanuun badneyd jijo oo ayadoo aabii hooyo leh gabar qurux badan dhowr jeer loo furo wacel baa tahay caruurteeda dugsiga looga soo aaflagaadinay loo caynay meel walba laga faquuqay markaa baafinta u sameeyay hooyadeed la helay gabar eedadeed ay lumisay ayadoo yar oo 30 sano kadib ka waran hooyadeed heshay aabaheed heshay magaci uusan ahayn hooyada Mareykanka degan tahay hadda rajo iyo mustaqbal iyo nolol leh oo maanta ay suuragal tahay rag fara badan inay xidhanayaan shalna ay uga tagayeen wacel baa tahay waxaana igu yaabadneed oo aan la yaabay gabar iyo hooyadeed ayaa jiray daris ahaa gabadha hooyadeed ay ka adeegataa mana taqaano qudaarey gadataa subax walba u tagtaa ayada korsata abeed uu dhintay gabadhii markii baafintaan u sameeyay hooyadeed waaba islaanta qudaarta ay ka iibsata waayo ilaa magaca saxan oo hooyadeed looma sheegin gabadhii waa aamin weydo si hooyadeed ku noqotay ayada markii loo tago waxay tahay maxaa ayada shal ku dayacday soo shal kuma xoorin soo shal kuma tuurin gabadhii waa siisan weyday ayay way taqaanaaba inta la degan yahay hal xaafada loo degan yahay hal hore lagu adeegtaa ayadii hooyada ma iskaranay way garanaysaa ayada hooyada ayada danba kama laha laakiin hooyadu ayada ma arkin ay weydin lahayd marka xanuun noocaas oo badan jiraan taas ay u yaabanayd aniga oo ay tiri hooyaday waa ka adeegi jirtay dirsan aniga ka waran dhowr sano ka adeeganayso hooyadeed tayso maadaama waxaa soo barnaamijyo waxaa soo ilina iyo waxaa soo caluliyo iyo waxaa soo walbahaar markasta qofba qof ka diriyay kula fadhiisto ma ka qaaday calooladay oo sheekada ka saameyn badan tahay mooyaane sheekooyinka iska dhaxe normalka ma ka qaaday calooladay oo ma oran karaa maanta Cabdicasiis haddii wax kasta dunida ka dhaco loola yimaado ma aha qof ma garanaysaa damqanayo oo qof caloolad kasta macnaha adkaaday maya ma aha fiiri marka nursing la baranayo amba surgery la baranayo marka jaamacada aad ka soo baxday aad cusub tahay aad dugsiga ka baxday cusub tahay aad daneynayso maadadii maalmaha koow dhiigga ku dawaqmay waa ooynay waa xanuunsanay laakiin marka dambe waxa gaaraysaa qaliinko socdo inaad rooti cunto qalbigaaga xogaa aadiya wala qabsanay laakiin wallahi markasto waxaa jiro
موضوعي مركان دوبة هبينك أنك سيحن واي عاجر أنت سود دين هبينك على مورو يا أنا مركب فرحد اعتمادنا أنسي سواي ما أنت أقدم بيس واحد هديدو واي كبر اعتمد هديدو أي كنت ما أنت أقدم بيس وهديدو سو مجد فرحد واي ما شاء الله ما أنت أقدم بيس ساعة كار يا مركب أنا مهمة بيقولي قفك بنادك إنه ضد كيسه هلا واي أيضا كروح قبضن كلام ملا أنا عبد العزيز سند كان قديس هذا شباب المرينا الفرابض waxaa noqotay qofka Soomaali ugu wanaagsan ama haday tanimo noqoto waayo waxa shaqaalmarinta Soomaalida shakhsiga ugu wanaagsan bal saddexdaad abaalmarinaad heshay adigu faalideedu dhiibanayay sida kugu kala farxad badnaayeen ala wadaag wallahi yarta amiroy aniga qofka Soomaali ugu fiican mihi laakiin waxaan helay fursadkii aan ku caawiyo go'aan qaatay waxaan aaminsanahay rag Soomaaliyeed iyo hablo Soomaaliyeed uga fiican inay jiraan sanadkan sanadka hore hadiid waa helay bilada helay sanad ka sii horeeyna bilad waa helay waa guuleystay laakiin sanadkan wuxuu ugu duwanaa sanadkan aan social media ku shaqeeyaa abaalmarintii ugu horeeyay abaalmarintan ahayd oo Somali Award on Night Award waxay ii aqoonsadeen inaan noqday best social media influencer of the year waa qofka ugu fiican social media Soomaalida kulli waa dhiirigelin waa waxaa jirta isla sanadka gudihiisa waxaa la qiimeeyay Somali magazine 100 qof ee Soomaalida u saameynta badan safka hore ugu jiray waa lagu soo diray waliba waxaa lagu siiyay inaan ahay journalist fiican wariye way kala duwanayeen kaliya laakiin markaan aniga oo social media-hina saameyn ku leh aniga oo wariye wanaagsan la gartay inaan noqday 100 qofood tan Somali Award habeen hore ahayd waxa waaye the person of the year qofka ugu wanaagsanay ayaga ay garteen waan uga mahad celinayaa kulli dhiirigelin waaye Soomaalida waxa ugu wanaagsan ee qofka la dhaho waa mahadsanid waaye ma aha inaas dhiganayo oo aan dhahayo social media meesha artay gaartay social media aniga dhaqaale uma soo gelin sharaf iyo magac uma soo gelin ee waxaan u soo galay inaan ka macaasho dunia aakhiro waad uga faa'iideyso dadka turkiisa Cabdicaiso aad baan kuugu mahad celinaynaa ma santahay su'aalaha ugu dambeeyay ku sii saqeynaa maadaama su'aalaha aad kuugu badiyay maanta dib malaan Cabdicaiso kullu wax lagu keenay hadiyadaha fara badan hadiyadu kala saameyn badan qofkii aad shalay la murugoonaysi oo maanta faraxsan oo kugu soo noqday oo jawi farxadeed ku jirtaan bunka wada cabaysaan markuu kugu keeno wax farxad leh ku farxaysan hadiyadaha lagu keenay tiiba kugu saameyn badnay oo aad uga hash oo itaabatay hadiyadaha uga qaalisanay waa shay horna u sheegay horta adduunyadu ma ahan dhaqaale dada aaminsan hadiyadaha lacag in lagu soo rido laakiin waxay aniga hadiyada igu yaab badneed oo aad uga helay waxay ahayd nin odaya waxaan u sameeyay baafin caruur raadinay caruurtii helay ma shaqeeyo wax ma haysto waan aaba qalbi fiican hadiyadu wuxuu igu soo riday warqad igu soo dhex qoray wuxuu ku soo qoray marka warqadda dhexda ku jirto wax walbo waaga istaashaa laakiin aniga hadiyada ku soo qorayo saakin ma quraacan caruurteedii magaalo fogaan laga sheegay abtiyaal ahaayo laakiin aniga wallahi inaan quraacanin hadiyadan waxaan kugu keenay anuu ka soo lugeeyay degmo laba degmo u jirta degmada aad degan tahay inaan waa mahadsan tahay ku dhaho wallahi waa ilmiyey ani hadiyadaha ma furo waxaan u furin qof hadiyada wuxuu soo gelin lahaa barfuun qaali ah ya qof wuxuu soo gelin lahaa laba xabo oo tufaax ah qof wuxuu soo gelin lahaa hadii marka la furo qof walba wuxuu isleeyahay wax badan soo geli mana haysto qofka wixii marka hadiyad kasta way qiimo badan tahay laakiin hadiyadaas aad ay taabatay hadiyadaas kugu qaalisan saameyn badan u sameeysaa waxaan dareemay qalbi wanaagis waxaa jira dad aan dadkooda u baafiyay helay ay u soo noqon jiro oo dad ii sheegaan hebel ma sha Allah qaraabaan nahay qofku raadinay wuu helay ay u soo laaban jiraan Soomaali qaar jira jiraan marka ay ku dhow waxaa soo gala in marka familka heleen la yiraahdo waran Cabdicaiso fiidooda ma naqin hadaan salnay marka in duruufaha istaan laga yaabaa Cabdicaiso dadka baafinta u sameeysaa kulli waa Soomaalida kala nuntay Soomaaliduna deewe qoloba meel bay degan tahay joogtaan marka dadka baafinta u sameeyso badanka way qofkii weyn inuu gaarto Soomaali ahaan qabiilku ka yahay waa inaad tixraac badan ku sameeyso deegaamada bay u badan yihiin ama sabiilahay bay u badan yihiin wallahi
ma beeleynin waa deegaaninayna Hay. horta dadka ugu badan ee ragga ah oo la raadinayo oo caruurtoodii amba xaasaskoodii raadinayaan waxay u badan yihiin kilinka shanaad ay u badan yihiin hablaha ugu badan marka la yiraahdo ayagana caruurta raadinayo caruurta ka tagana waqooyiga u badan yihiin waqooyiga kilarka shanaad iyo Soomaaliya un baa isqaafinaysa waa dad deegaan ahaan kala fogaa magaalada Muqdisho iyo ay midaysay amba shaqo iyo ciidan ay midaysay kadibna dagaalada markay dhaceen kala tageen inkastoo ay jiraan oo ay soo saddexayaan ragga ciidanka ahaa oo ciidan ahaan amba gobolada waqooyi loo geeyey amba gobolada dhexe loo geeyey ama meelo kale loo geeyey baa bakool dhibaatada markii ay dhacday kasoo cararay halkaas ee caruurta kasoo tagay oo jiraan ayagana wallahi horta caruurtu markastaba dambe ma leh sababtu tahay waalidkii dhalay unbaa ma garanaysaa waxaan kugu daraatan kalo yaab waxaa waaye afraad waxaa soo gelay qodbisarada inta gabar la nikaaxsaday muddadii hore bersamaadkii caruur ay dhashay la maqan ee la yiraahdo kadibna cunugii lagu calaataa laleeyahay aadan ilaa wallahi wacal ma ahan aabihiis waa nikaaxsanay laakiin cid lama ogeyn oo aan helay ma cadna ma xisabnaa qodbisarada waa shayga ugu xun ee saameynta ku yeelatay caruurta maanta gabdhaha iyo wiilasha aabba la-aanta sheeganaya marka waa qodbasiru waa meher aan la ogeyn meher xalitaanka marka meherka markii caruurta ku dhashaana labadooda shakhsi unba og ninkii iyo gabadha dhibkii waxaa ku dhacaa cunuga ku dhacaa hooyada waxay leedahay aabahaaga hebel aa la yidhahdaa qabiil hebel u ahaa raadi aabihi waxaa soo inuu xaas kale qabo ka qarinayo dhibka ugu badan kaas waa bismillah waa subxaanaka yaa cadiim cabdicaliso waxaan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad noo hortay iyo sidoo kale sida wanaagsan ee aad nagu warantay aad waxyaaba badan noogu bayaanisay waa mahadsantahay aad maxay tahay bulshada waxyaaba badan oo ay sugayeen oo hadday tahay shaqo hadday tahay in bulshada la caawiyo loo hagar baxo wax badan lagaa faa'iideeyo thank you cabdicaliso asxaabtaada social media asxaabtaada iyo asxaabteeda midaan leeyahay waxaan dhihi lahaa hadda adiga muuqaalada waa positive-nimada muhiim ku ah ayagana inay dhiirigeliyaan dadka wanaagga iyo waxyaabaha quruxda badan u sameynayo inay dhiirigeliyaan oo qabiil iyo dadka ishaysta iyo aflagaadida iyo aysan aadin oo ay ku subscribe gareeyaan dareemaan inaad tahay qof bulshada wax kusoo kordhi karo intaan yiraahdo asxaabtaada cabdicaliso waa mahadsantahay hadalkaaga waxaa ka dareemay in dumarkana fursado badan la siiyo oo dhiirigelin badan la siiyo aad baad u mahadsantahay waqtiga qaaliga ee muhiimka aad ma garanaysaa noo soo hortay maanta waxaan ku sugnaa xafiiskaaga aad ugu marti qaaday intaasaan wax loo dhigabaanay jirin waan kaaga mahad celinayaa waa mahadsantahay thank you waxaan ku leeyahay dhiirigelintaada iyo saad bulshada u caawinayso iyo waa laga yaabaa inan baaho laftirkeedu hadduu gaab isku galo inay ku dhiirigelin karo imika waa xiga sii faa'iidayso marka halkaa ka sii wad thank you sanadka dambena insha allah in isugu nimaadno ilaa miiskaa soo buuxa hadiida darti meel aad wanaag kala dhigta adigoo waaya waan ku faraxsanahay inaad noo timaado oo aad stuudiga noogu timaado xarunta dhexe stuudiga xarunta ugu weyn waay muqdisho marka kolley adigana dad badan soo wici doona ku dhahay Abdicasiis dab aragtay baafina u baahan inuu gee baranji noqo wixii muhiim ah waa kula soo xiriirsan baranji noqo waa mahadsantahay waa qayb kamid aad baa mahadsantahay thank you guud ahaanba barnaamijkii intaas buu naga ahaa waad ku mahadsan tahay sidaad noo daawatay haddaad nagu cusub tahay mar kale nagu soo bir asalaamu calaykum